السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago 3 hab oo u nafci badan xagga xasuusta macluumaadka iyo xifdintooda intaba. inaad u sharaxdid cashirka qof ama naftaadaba waxaa kaloo samayn kartaa inaad hor istaagtid miraayada ama darbigaba aad u sharaxdid. saynisyahanka caanka ee Albert Einstein wuxuu dhahay hadda ka hor hadaadan awoodin inaad u sharaxdid fikradaada ilmo lix jir ah adiga qodhaada ma fahansanid. marka aad qof u sharaxdid waxa ku galaysa kalsooni, cashirkiina si fiican ayuu kaaga dhaadhacayaa. imtixaan ha kula meenin waqtiga inaad ku laalaabato cashirkii adigoo walwalsan sidaasna ay kaaga si kala dhumaan wixii hore aad u soo baratay. marka aad baratid kadib waxaa sameysaa imtixaan kadibna waxaa kala fahmaysaa waxa aad taqaanid iyo inta kuu dhiman. waxaa samayn kartaa inta kuu dhiman inaad xoogga saartid sidaasna uu waqtiga kugu seefgaroobo. ku laalaabo wixii lagu celceliyaa maskaxda qabato waa sax, laakiin ku celcelinta waa inay waqti u dhaxaysaa. ma ahan inaa cashirkii hadda aad akhrisay 5 jeer aad ku celceliso isla markaana aad weligaa hilmaameynin. maya saas ma ahan. ku celceli waqti dheerna u dhaxaysii waxay kaa caawinaysaa in wixii aad baratay aad waqti dheer xasuusnaato. marka ku laalaabanaysid waa inaad taqaanaa qaabka waqtiga iyo hababka ugu munaasabsan. soo baaritaanada ku aadan maskaxda iyo waxqabadkeeda in badan waa lagu faa'iiday. idinkana inaad ku faa'iideyna idin rajeynaa. isgaarsiiya iyo shargareeya taageeradiina ii muujiya in badan waa idin jecelahay. sidaas inkaga tagaa iyo kulan dambe oo xiiso leh, wax akhris wax soo saar leh insha Allah. mac salaam.